adduunkan u jeeday ma jiraan wax isku isaga soconaya, wax walba waxay leeyihiin qadar iyo hadaf gooni ah oo Ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. balse qof kasta waxaa ku fiican inuu leeyahay hadafyo asaga khaas u ah. dadku isku hadaf maaha, isku fikirna maaha. ninba goonidiis ayuu u fikirayaa maanta. haddaad adigu ku fikiraysid hanti, dhaqaalo, mid adiga kula mid ah, kula jooga, kula deegaana baa wuxuu ku fikirayaa caafimaad. wuxuu ku fikirayaa sida nolosha hadda uu ku jiro oo uga bixi lahaa oo u geli lahaa nolol kale. mid adiga kula deegaana kula jooga baa wuxuu ku fikirayaa inuu adduunyo kale aado. marka hadafku waa qofka meesha uu hiigsado. waxaana fiican qofka mar walba inuu leeyahay wax la yiraahdo role model ama qof aad hiigsanaysid. mana fiicna qofkaas inta badan inaad la kulantid oo ag taagnaatid, waayo waad ka niyad jabaysaa. marka hadafka adigu naftaada u yeeli kartid waxay tahay, hadafyada lagaga baahan yahay waxa weeyaan marka koowaad in aadan marnaba u nuglaanin waxyaalaha ka hor imaan doona oo caqabadaha kugu noqonaya. tan labaadna waxa weeyaan in haddii fursadaha qaar ay kuu saamixi waayaan, waxaad u baahan tahay inaadan ka niyad jabin. waana waxyaalaha qofka bini'aadanka uu kor u qaadaa hankiisa. marka aad ku kuftid maanta wax kaa halaabay, berri waxaad ogaan doontaa, cibrana ku qaadan doontaa wixii kaa halaabay inaad wax ka soo fahantay. waayo markaa wax isku daydid bay wax ku hagaagayaan, laakiin adoo waxba isku dayin waxna kuma hagaagayaan. weliga ha fiirin qof guulaystay oo horay u soo shaqaystay oo maanta tiisii maalaya, adiga taada ha ku darin. waayo isku dan iyo isku dayoof midna ma tihidin. isagu waa u soo rafaaday, waa u soo baaba'ay, waa u soo dhibaatooday. adiguna hadda ayaad cusub tahay. xaal kasta oo dunida maanta ka jira wuxuu leeyahay meel uu ku dhammaado. hadduu shalay uu lahaa meel ku bilaabmo, adiguna waxay ogaataa meel uu ku dhammaado inuu leeyahay. haddaa maanta faraxsan tahay, waxyaalo kaa jiiraya oo kaa burburinaya inay jiraan. haddaadse maanta murugaysan tahay oo dhibaato kula soo daristay, waxaad ogaataa dhibaatadu inay cidna la dhalanin. nolosha qofka bini'aadankaana marxaladaha soo mara ay ka mid tahay. taasina waxay ku baraysaa sixirka nolosha ama qaababka nolosha u dhaqaaqdo. sida garaafka marka la cabirayo, meel wuxuu leeyahay ugu sarreysa iyo meel ugu hooseysa iyo meel dhexe. buur maanta haddaad koraysid, waxaad ku koraysaa energy adigoo daali iyo culays iyo rafaad u maray oo buurta koraysaa. meesha ugu koraysa markaad tagtid, hadhow markaad kasoo degaysa buurtaas, culayskii iyo rafaadka energy-gaad ku kortay asagoo degdeg ah ayaad dib u helaysaa. adigoo aragtid maanta marka buur fuulaysid ama ka degaysid, laba marxaladood maraysid. midna inaad xoog ku kortid, midna inaad meel aad qabsatid oo tartiib uga degtid inaad heshay. marna waa xoog, marna waa tartiib. nolosha labadaas midna kama foga.
laakiin waa habka sida ugu dadaashid weligaa ha ka niyad jabin. waxaad aragtay, waxaad maqashay, laakiin ku dadaal intaba inaad ka dhawaysid riyadaada.